warahmatullahi taala wabarakaatu. Saxaabka channelkayga ku xidhan Maxamed Muuse, waxaan idin dhigi doonaa insha Allah, waxaan idin tusi doonaa prankiga ayaan Marsh iyo qurux ka dhigle ayaan ka bixin doonaa reaction. waxaan ku raday la socdo si idin leeyahay. haddana insha Allah waxaan eegi doonaa prankiga qaybtiisa gudaha gallo bara. maadaama laba markhaati sheekhiina kaaxina loo baahan yahay, marka gabadhan walaashayda waa wax walba waa kasoo dhammaatay. meerkeeda waxay dhahday aniga fasgees dahab iyo $100. ma fahanta? ما شاء الله. waxyaalaha maari waxay sug culimada warka afka la gelinayo. may waxyar hadalka aan dhamaysto caadi waaye. ma wadaa day ogaadaan xataa maari wax hadaa isla ognahay dadkan dadkii beri nagu cayn lahay ma aha. meerkii yaroo baraka ku jira wax weyn ha ka dhigin. suga hadalka aan dhammeeyo maari waxaan isla ognahay wax kale ha ka dhigin. marka walaalkayga fasgees dahab iyo $100 codsatay. teeda kale waxaan anaga nolosheena private-ka inaan kaaga dhacamarayo meeshay degan tahay iyo locationkay degan tahay kulli waa usoo diyaariyay. saad u arkaysiinba Marish waa xanaaqsan, weliba waxay ku hadashay garaweyde. waa isla ognahay just kula ogahay ma jirto. ani igu khaldaysa naga xalay heshiiseen ma igu khaldaysa waa bakaashkii badan kulli wixii soo galay rashiid xataa waxaa laga yaabaa inaad gadaalkaaga ziyaadiyo oo businesskaaga marka sheekh shuruudaha maxaa dhima marka buu shuruudaha waxaa waaye marka ugu horta in la helo waalidkeeda koolka soo fulo dib male walaayadu uu soo wareejiyo meherkana isku raacdaan. ma meherka ka hadal ma lahay sheekh taasaa ku laabanin laakiin aabba way wacaysa hadday wacay hortaada ku wacay waxba ma inay aqbashaa loo baahan yahay. aqbalaada sheegaysa maxaa walaalkeyga waxaanan aqbalayn ma intaan qarash iyo waqti gali lahaa idin soo dhumin lahaa. aqbalaada sheegaysa maxaa aabba wac maari shan caadi ma taha maya waxa baayo waxaa mara koolka ku dhufo walooba muhiim waa adiga suuraan naga dhaafno dadka igu ceebaynay maari aabba wacan mar ya aabba wac aabba la-aantiis ma soconaysa arrinka hadduu wiilkaa weyn musa jirin oo hadda aad meesha ka dhow inuu walaayada aabba caadi ma taha maante ما عادي مين ماري هذا والله بسكتي حلو إمام عامة كان لا والله بالله عارف متى قراسان خميس كأوة تفيري والله قراسان أبان كان ما يقولوا سا ديرتام حكى الرجل يقول لي كركري كفور لما ماشي حتى تذكر محوسون لقوا سواي وحكى هذا سأنه أكاني arrinkan waxbaa weli فيري من أكو شيء دير وحال dadkan wax social media aan ku dhex aragtay ma meeshan ku jiro hal qof waliga social media ku aragtay ma waliga ama khamiis wato ku soo ag fariis. Marish waa xanaaqsan, weliba waxay ku hadashay garaweyde iyo waxaa ku raday qurux ku dhigle isaga naftarkiisu hadalka ku celcelinaya iyada wuxuu diidan yahay suu u sheegay fiidiyoda dambe insha Allah idin tusi doono clip dambe idin dhigi doono. saad u arkaysiin hadalku ku celinaya marka maadaama uu doonayo inuu prankigiisu uu ka fashilmin ma garanaysaa fashilmin waayo hadday hadasho timekii soo yaraanay ana pranki inuu fashilmaan diidana hadalka saas ugu dhijinayo marka okay ريمي كارو وواحد لو بيانتو قبلنا نصبني ماذا سنكو أمانة أما وحيابان كو جعلا حكى له يسموه وحكى له يسموه يا حكى له يسموه خرط هذا كان من السعبان بهذا كان يسموه وروحان عيب مع عباي أنا وأوه كستيرت أبغى الدوري فزجيس كعدو ساعة hadalku wuxuu ku celcelinaya taas weeyaan oo maadaama uu doonayo inuu ka fashilmin prankigiisu saad u arkaysiinba la socdo baa idin leeyahay. waa ka markuu hadalku ku celcelinayo iyo markuu ka hadlayo uu leeyahay waxaan ku raday aan hadalku ku celcelinayo Marish waxaan ku raday waxa weeyaan inuu yacni ka fashilmin prankigiisu. ma fahanteen
كي كارستانيو فكرتين كعبسة قبل كي كارستانيو كشيء قال والله waxaan u maleynayay magaalada ka baxsan doonto maanta magaalada Nairobi. Thank you so much brankigan yani wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badan ee bulshadeeni iyo ka jirta ma garanaysa dhalinyarta inta badan ay sameynayso marka waa brand fiican oo wata xambaarsan bulshada waxaan ku leeyahay culture-kii oo dhaqankii yani inay fiicneen inuu qofka maxaan ku leeyahay inta la tago sheekun la mehersado adigoo aabaheed iyo waalidkeed iyo family-ga isbaran taas waxay sabab u yeelan kartaa yani in labada qof hadhow markay isku kursadaan ay isku dhaci doonaan oo maxaan ku leeyahay reerka halkaas ku burburi doona marka waxaan idin talinayaa aniga Maxamed ahaan waxaan idin leeyahay insha Allah waxaas iska ilaaliya baa idin leeyahay wadadii saxda ah la maro subscribe like share channel-kaygina aad baad mahadsantihiin baa idin leeyahay saxaabtayda igu xidhan